Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku kulmi doona Las Vegas 23 kulanka Soccer Champions Tour oo ka dhici doona Mareykanka. Kooxaha xifaaltimo ee El Clasicada ayaa ku kulmi doona garoonka Allegiant ee dalkaasi Mareykanka markoodii labaad sanadkii 2017 ay hore ugu kulmeen Miami. Qabanqaabayaasha loo yaqaan Anschutz Entertainment Group oo loo soo gaabsho AEG ayaa xaqiijiyay Jimcihii faahfaahinta 5 kulan ee Soccer Champions Tour-ka, kaas oo sidoo kale ay ku jiri doonaan kooxda ugu awooda badan Talyaaniga ee Juventus iyo kooxaha Mexico Chivas iyo Club America. Kadib dhowr sano oo aan lagu arkin qaar ka mid ah kooxahan gudaha Mareykanka, waxaan ku faraxsanahay inaan fursad u siino taageerayaasha kubadda cagta ee Mareykanka inay mar kale daawadaan naadiyada Yurub iyo Mexico ee ay jecel yihiin. AEG ku-xigeenka sare ee kubadda cagta iyo howlaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga Tom Brown ayaa bayaan ku sheegay, iyadoo qayb ka ah socdaalkeeda Mareykanka, Barcelona waxay sidoo kale wajihi doontaa Inter Miami iyo New York Red Bulls July 19 iyo July 30 sida u kala horeeyaan. Kooxda Celtic ayaa si rasmi ah ula wareegtay daafaca Cameron Carter-Vickers, kaas oo ay kaga soo iibsadeen Tottenham lacag aan la shaacin. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Mareykanka ayaa amaah guulo ah kula qaatay kooxda haysata horyaalka Scotland xilli ciyaareedkii hore, waana markiisii toddobaad ee uu ka tagay waqooyiga London kadib markii uu u soo ciyaaray kooxaha Bournemouth iyo Swansea. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhammaystiro u dhaqaaqida Celtic, ayuu u sheegay website-ka kooxda Glasgow Jimcihii. Waan jeclaa daqiiqad kasta oo ka mid ah waqtigayga Celtic ilaa hadda. Waxaan runtii doonayay inaan qayb ka noqdo mustaqbalka kooxda. Waxaan kooxda ku haysanaa koox ciyaartooy ah oo cajiib ah. Runtii niyad fiican ayaa naga dhex jirta. Dhammaanteen waxaan si adag ugu wada shaqaynay sidii aan u gaarsiin lahayn horyaalka iyo League Cup-ka xilli ciyaareedkii hore. Carter-Vickers waxa uu wadar ahaan Spurs u ciyaaray 5 kulan. Bayaan ay soo saartay kooxda ayaa lagu yiri, waxaan u rajaynaynaa Cameroon mustaqbal wanaagsan. Maamulaha Celtic Ange Postecoglou ayaa ku daray, aad ayaan ugu faraxsanahay in kooxdu ay si joogto ah u dhammaystirto saxiixa Cameroon. Tani waa soo iibsiga weyn ee Celtic. Run ahaantii waa war noo wanaagsan anaga. Qof walba oo kooxda ka tirsan aad ayuu ugu shaqeeyay sidii ay tani u dhici lahayd. Cameroon waxa uu kooxda siiyay wax walba oo ilaa hadda haysto, isagoo muujiyay qiimaha dhabta ah ee uu u leeyahay kooxda iyo qaabka aan u ciyaarno. Waxa uu muhiim u ahaa guulaheena inta lagu guda jiray xilli ciyaareedka. Waa ciyaaryahan si adag u shaqeeya oo tayo dhab ah leh. Waxa uu ahaa boos joogto ah. Manchester United ayaa diyaar u ah lambarka funaanada riyada ee Frenkie de Jong, iyadoo wada hadallo 70 milyan gini ay kula jiraan Barcelona ay sii socdaan. Tababaraha cusub Erik ten Hag ayaa ku wargeliyay kooxdiisa in ay la soo saxiixdaan de Jong oo uu kula soo shaqeeyay Ajax ka hor inta uuna ciyaartooyga u dhaqaaqin Camp Nou 3 sano ka hor. Waxaa la rajaynayaa in de Jong uu noqdo saxiixa ugu horeeya ee xilliga ten Hag ee United, inkastoo ciyaaryahanka lagu soo waramayo inuu u baahan yahay xoogaa qancin ah si uu uga tago Barca. De Jong ayaa ka cagijiiday inuu ku biiro United sababtoo ah la'aanta ka qaybgalka tartanka Champions League. Inkastoo Barca ay diyaar u tahay inay lacag kaash ah ku heshay isaga, ayaa lagu soo waramayaa inay keentay inuu isbedelo. De Jong waxa uu xiran yahay nambarka 21 ee Barcelona, waana nambarka uu ugu jecel yahay. Sida uu u sheegay Football International 2019, waan ku qanacsanahay lambarkaas. Si fudud ayaan ugu ciyaari karaa nambar kale. Waad ogtahay, dhib ma laha, laakiin way fiican tahay inay sidoo kale dadka siiso hab ay igu aqoonsadaan. Waxaan qoyskayga oo dhan u keenay bandhigayga Barcelona marka laga reebo Johannes de Jong. Aabahay wuxuu dhintay anoo dhalan 21 maalmood anigoo aan miyir qabin. Sidoo kale waa nooc abaalmarin ah. Wuxuu ahaa taageere kubadda cagta ah. Nambarka 21 hadda waa bilaash United kadib markii Jimcihii la xaqiijiyay 11 bixitaan oo uu ku jiro Edinson Cavani. Cavani waxa uu xirnaa lambarka 21 labadii sano ee uu joogay Manchester. Isla lambarkaas ayuu u xiran jiray xulkiisa qaran ee Uruguay. Lambarkan sanadihii ugu dambeeyay waxa uu xirnaan jiray Manchester United Daniel James iyo Ander Herrera.